habeenadii hore ka soo hadalay caqiidada liidata ee ceebta iyo cadaabka laga helo oo gaaladu leeyihiin waxaynu halkan ku qaadan doonaa caqiidada wanaagsan ee Ilaahay uu nafaraya subxaanahu wa ta'ala ee calafka weyn iyo cisiga laga helo caqiidada islaamiga ah al-iimaan al-khaalis wa thamaratu aw thamaratu al-iimaan al-khaalis iimaanka wanaagsan iyo midhaha laga goosto tobaneeyo ka mid ah baynu waqtiga kooban dareerin doonaa insha Allah aayadda 28 aynu dhageysanaynay ayaynu isdul taag insha Allah alladheena aamanuu wa lam yalbisuu iimaanahum bidhulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtaduun dadka alla rumeeyeen iimaankooda dulmi ku darin gardaro nabadgelyana way leeyihiin hanuunna way leeyihiin buu lahay asxaabtu markay dulmiga nabiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay oo uu ku fasiray gaalnimadii shirkiga inna shirka la dhulmun cadiim marka iimaanka khaaliska wanaagsan ee shirkiga ka nadiifta ah lahu thamaraat midho badan buu leeyahay waxa kamid ah ugu horeyn midhaha laga goosanayo iimaanka aayadda laba mid sheegtay laba kamid ah waxa weeye amnigaasi waa amni xagga nafta ah iyo amni ummaddu ay leedahay iyo amni adduunyo iyo mid aakhiro waa nabadgelyo ciidamo la samaysta laguma nabadgala iimaan wanaagsan ayaa lagu nabadgalaa qofku isagoo iska nabada baa laga yaabaa haddaanu iimaan lahayn inuu warwarsan yahay oo naxsan yahay oo didsan yahay الأمن النفسي والأسري والقومي لنع والبا هنون ويلي هنون كوحوية نولش انت تكتشرت الله ووافتشيه وحا وناكسن اي لهي وتعالي سبحانه وتعالى يهر مر مراها إيمان كاس وحا كمدا ولاية الله قفكو كلا دو إيمان ياشو أولياء إلهي وي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أولياء إلهي وادتك إيمانك له أولياء كله رادين أولياء سواء الله يقانك إلهي رميس سبحانه وتعالى مركوا أدونك ولي إلهي نغضه وجعل هذا ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودبوا إلهي سينيا وجعلي ربي waxa dhacaya markaas thamarada iimaanka kamida in dhagahoodu qofka la yaqaanka Ilaahay rumaysan dhagihiisu iyo qalbigiisu wuxuu culan yahay ama u furan yahay waanadiya waxa wanaagsan wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin maxaa idin keenay idin soo eriyay ila qofku markuu afro iska seexan karayo xaafadiis waxa jamaca keenaya ee soo eriyaya ee inta uu fadhiya dhadhan buu ku hayaa cilmiga cibaadada Allah ay noo calfo intaasoo saxmadaya intaasoo orada qofka waxa riixaya iyadoo dad badan aynu arkayno inaanay waxaynu wadnada aanay ka warhayninba qofku ka iimaan badan yahay ayuu wacdigiisa waanada ka jecel yahay hadaad aragtay wacdigiisa waanada adoo abateedu leh oo dhadhan ku haya rajadaadu way fiicantay kordhi hadaad aragtay adigoo ka sii dhaxsanna wad xanuunsanaysa waxa kamida thamaradaas iyo midhaha noloshu waxay noqotaa nolol wanaagsan oo sacaado leh sacaada maanta la wada doondoonaya raaxada adduunyada waa iimaanka iimaan laan lama helo man amila saalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba nolol wanaagsan baa siinaya baa Ilaahay uu qofka amal wanaagsan iyo aqoon fiican haya iyadoo xoolo lahayn iyadoo buko ayuu sacaado iyo farxad iskaga noolyahay iimaankaas wuxuu keenayaa arsaaqad badan oo barakaysan arsaaqadu inay una badato dadka una barakowdo waa thamarada laga helo iimaanka walaw anna ahla alqura aamanuu wattaqaw lafatahna calayhim barakaatin min as-samaa'i wal-ard alla ka cabsiyo iimaan hadday dadku isku dari lahaayeen cirkiyo dhulkaba roobku muu kala go'een waana u barakoobi lahayd arsaaqadu thamarada laga helo waxa kamid ah cisi waa guul iyo gobonnimo iyo horumar la helo sharaf
siduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qarniyadii fadliga badnaa sharaf ugu noolaayeen walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ilaahay rasuulkiisa iyo awliyada ka tala qaadatay ayaa cisi iyo sharaf leh cisigoodaasuu ilaahay u difaacaa oo uu ku ilaaliyaa mu'miniinta ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu dadka la yaqaankaa ilaahay baa gaashaan u ah haddii lasoo weerarana isagaa u hiilinaya oo cadowga ka dhicinaya wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin dadka ay rumaysan aniga ayay waajib ku tahay buu ilahay yidhi inaan u hiiliyo kataba allaahu laaglibana ana wa rusuli waa aayaad badan baa tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum waa difaacii kolkii hore iyo nasrigii oo guushii baa ilaahay uu siinaya subxaanaه wa tacaala markuu guushaasi iyo cadowga ka difaaco dhulkiibuu awooddiisii iyo maamulkiisii iyo xukunkiisii gacanta u gelinaya wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlardi kama stakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna waa dadka ilaahay rumeeye camalka wanaagsan sameeyey anigaa maamulka iyo xukunka iyo adduunyada gacanta u gelinayaa baa ilahay ui subxaanaه wa tacaala intaa markay helaan kadib waxaa ilaahay u wanaajinaya haddana safarkii adduunyadu hadduu hagaagay safarka aakhiraa loo hagaajinaya safarka aakhiro sacaadadiisa ayaa loo hagaajinaya adduunyada laguma waaree waa laga wareegaaye wareegaana ilaahay wuxuu uga dhigayaa mid qiimo badan oo fiican in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu waa iimaankii bay sheegaysa tatanazalu calayhim اlmalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljanna waa soo dhoweyntii markay sii dhimanayeen sakaraadkii iyo geedigii aakhirana sidaa fiican bay u dhaafeen waa midho kale iyanoo laga qaatay meel barsakha la ydhaha baa la tegayoo xabaalahoo lama huraana halkaana ilaahay muxuu siinayaa midhihii aakhiraa u bilaabmaya yuhabbit allahu aladiina aamanuu u fiirso mar walba lafduliimaan baa inala socda yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli الthaabiti fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira adduuniya aakhiraba ilaahay qowlkii ay ku soo sugnaayeen uu ku ilaaliyey ayuu aakhirana ku ilaalinayaa imtixaanka adag ee la marayo ee dadka lagu kala shaandheeyo ee qubuurta ilaahay malaa'igta u soo diro qofka mu'minka ah midhihiisii buu goosanayaa maalintaa halkaasaa markaa noloshii aakhirana midhihii dee aad bay u badan yihiinoo alfazacu alakbar argagixii weynaaba haddana ilaahay uu ka ilaalinaya haddana marka la sii socdo wuxuu u siraadayaa meelihii madoobaaye la marayay yowma tara almu'miniina wاlmu'minaati yascىa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim waa iftiinkii waa iftiinkii jidka siraad lagu dhaafayey ee jannada lagu tegayey sidaasaa haddana rabbi subxaanaه wa tacaala uu ku geynayaa jannadii isagoo ka raali noqonaya iyadoo uu istusayo iyadoo ay farxayaan marka midhaha iimaanku uu leeyahy kuwaasa ka mida adduunya iyo aakhiraba marka ayaan iyo anfac wanaagsan waxa leh qofka ilaahay uu iimaan waafajiyey uu una hagaajiyey iimaanka allah inoo sugo allah inagu adkeeyo ilaahayna waxaynu camal samaynayna allah inaga aqbalo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu yaa munzila alaayaati wاlfurqaani baynii wa baynaka xurmat اlqur'aani